wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare Dr. Abdirahmaan Daahir Usmaan oo aan la yeeshay wareysi dhinacyo badan taabanayay ayaa ugu horeyn waxa uu daaha ka qaaday inuusan hal taako ka tanaasuli doonin dhulka wasaaradda waxbarashada ay leedahay ee xilligan loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed in loogu shaqeeyo qaabkii la doonaba ha lagu bixiye waxa uga sii darana anaga hantideena waxay ahayd kuwa ma arkaysa muhiim ah oo dad ay ka faa'iideysanayeen goobaheeni qaarkood waa saad sheegtay waxa waaye dada wali ku jiro qaarkood way burbursan yihiin oo ma arkaysa awood uma lihin in aan uma helin ilaa iyo hadda inaan soo dhismo qaarkood laga yaabo in ma arkaysa waa hore la kala iibsaday oo gacmo kale ay marayaan laakiin wali waa la ogyahay in ma arkaysa hantidan ee dawladda leedahay yaa siiyay way badan tahay sababaha ay dadku ku heli karaan qaar way iska ma arkaysa qaateen markii ma arkaysa dawladda dhexe dalka ay ka dhacdayo nidaamkii iyo uu dhacay qaar laga yaabay ma arkaysa dawladihii soo jiray iyo dadkii naga horeeyay in ma arkaysa ay warqado u qoreen ay ma arkaysa muddo ay ku siiyeen waqtiyaysan qaar laga yaabay in ayagu ay siyaabo kaleento warqad u soo qorteen way badan tahay sababaha ay dadku haystaan laakiin waxa meesha yaalo waxa waaye in meelaha soo idil ay hadda sidii ay u socon jireen waxyaabihii ka socon jiray aysan ka soconin marka anaga way naga go'an tahay hantida dawladda hal taako oo kamid ah ma ogolin in ma arkaysa lagu takrifalo oo si xaq darro ah loo qaato Dr. Abdirahmaan Daahir Usmaan wasiirka wasaaradda waxbarashada sidoo kale waxa uu ka jawaabay su'aal ku aadanayd manhajka dalka Soomaaliya uu qaatay iyo luqadaha la doorbiday markaad noqoto luqadda xageeda markay noqoto aqoontii ku jirta iyo xirfadii koob dugsiga hoose dhexe wuxuu noqon doonaa af Soomaaliya ku baxaya manhajka hadda rabna inaan dhaqan gelino luqadda Carabiga oo ayadana dalka ka ah luqadda labaad dastuuriyan waxay noqonaysaa luqad laga bilaabayo galaaska koowaad in qofka uu Carabiga uu ku bilaabayo ilaa iyo ma arkaysa inta uu iskuulka ka dhamaanayo Carabiga luqad ahaan ayaa loo qaadanaya naxwihiisii iyo sarfigiisii iyo taariikhdiisii iyo qisaskiisii waxa soo dhan soo leh waxa kale oo haddana Carabi ku baxaayo tarbiya islaamiga ama diinka wixii la jiray maadaasna way jirtaa ayadana galaaska koowaad ka bilaabanaysa diin marka Carabigii marna tarbiyatul islaam uu ku baxaya marna wuxuu ku baxaya luqad ahaan ayaa dadkii loo barayaa iyo af Soomaaliga oo maadooyinka intooda kale ay ku baxayaan waxa ayadana meesha jirta si ardaygii uu ma arkaysa dunidana ula qabsado oo hadda global caalamiga luqadda la isku dhaafsiisto waxay noqotay ama cilmiga lagu raasado af Ingiriis marka luqadda Ingiriisiga ayadana ayadoo tayaysan waxa laga bilaabi doonaa galaaska saddexaad marka luqad ahaan ay u qaadan doonaa waa primary-ka secondary-ga marka la tago waxay noqonaysaa arrin kale waa optional waxa weeyaan asagoo ma arkaysa af Soomaali ah maadooyinka af Soomaali horta luqadda Soomaalida mar walba iyo suugaanta waxay noqonaysaa wax ma arkaysa jira si luqadeeni iyo jiritaankeeni iyo taariikhdeeni horta aanu ilaashano marka wasiir Abdirahmaan Daahir Usmaan waxaan hordhigay su'aal kaftan oo ku aadanayd kalsoonidiisa ku aadan inuu xafiiska sii joogo isla markaana uu la dhameysto xukuumadda ra'iisul wasaare Khayre maadaama wasiiradii arrimaha dibadda arrimaha gudaha iyo ganacsigaba xelalka laga qaaday iyagoo howlahooda wata anaga waxaan aaminsanahay inta xadiiska rasuulka kaleey salaatu wasalaam wuxuu ahaa qiyaamaha duu dhacayo oo gacantaada uu ku jiro geetimireed waa inaad siidkaasi waa inaad dhulka gelisaa beertaa meeshan markaan imaanaynay uma imaanin in ama aan 4 sano joogno ama aan sanad joogno ama 2 sano aan joogno contract aan saas ku soo galayna ma jirto waxaan u nimid in ma arkaysa shaqadan aan u qalanno aan rabno inaan wax ka qabanno maalintii ma arkaysa ay timaado cadaadis siyaasadeed u yimaado ay khasab noqoto inaan meesha ka baxo ama aniga iyo dad kale oo saaxiibadayba ay meesha ka baxaan waan banaynayna dad kale imaanayo waxaan sii kaxeynayo laakiin intaan joogno unbaa waxaa muhiim ah inaan keeno istaafeedkii socda inaan wax ku sii darno taasna way naga go'an tahay haddii ma arkaysa aan fursad helno aan joogno ilaa iyo ma arkaysa periodka intuu ka dhamaado alxamdulillah haddii ma arkaysa taas ay dhici wayso xilliga ma arkaysa meesha laga qaado waan ku faraxsanahay intii aan dalka aan u soo khidmaynay anagoo dalkeena matalaynana waan ku faraxsanahay Abdicays Abdullaahi Maxamed Abdicays Somali Cable magaalada Muqdisho